laakiin waxaan ugu faraxsanahay waxa weeye xafiiska oo aan ku qanacsanahay meesha uu maanta taagan yahay iyo qofka aan ku wareejinayo asagana aan ku qanacsanahay aqoontiisa kartidiisa aadaabtiisa akhlaaqdiisa diintiisa inay iswaafaqi karaan oo aan ka gamci karo saasaan ugu faraxsanahay horta waxa uu macsalaameynaya howlwadeenadii kala shaqeynayay xafiiska uu soo maamulayay ku dhawaad 6 sano ee la soo dhaafay waxa uu kala dardaarmayaa xeerlaaliyaha cusub wiilasha iyo gabdhaha xafiiskan oo tira ahaan ka badan xafiisyada kale in uu u ogolaado waxbarashada ay ka heleen dawladda iyo tooda gaarka ah waxa uu u jeediyay howlwadeenada xafiiska inay la shaqeeyaan xeerlaaliyaha cusub waxaan idinkula dardaarmayaa mas'uulka cusub oo idin yimid inaad si daacada sidaad ila shaqayn jirteen oo kale ula shaqaysaan isla markaasna aad sii laabtaan shaqadiina haddii waayahan dambe uu jiray somehow markaan anigu daalay idinkuna inaad daasheen laga yaabo anigu waan daalay 6 sanaan meeshaan joogay ku dhawaad markaan daalay waxa laga yaabaa shaqada inaan ka gaabiyay haddaad ila gaabiseen hadda nin cusub ay idin yimid oo maalintii ku aan bilaabayno kale intuusan usha idinku dhufanin ka hormara ka dheereey waa hubanti in shaqo kasta culeyskeeda leedahay cid kasta oo ka tirsan shaqaalaha xafiiska iyo bulshada inteeda kale ayuu cafis weydiistay Dr. Axmed Cali Daahir xeerlaaliyihii hore waxaan dhammaantiin idinka dalbanayaa inaad cafisaan wixii khalad ah oo iga yimid anigana waa cafiyay ciddii muxuu ahaa ii sheeg aan wax ka tabanayo Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud xeerlaaliyaha xafiiska la wareegay ayaa ugu horeynba loo dhaariyay xafiiska waxaan ku dhaaranayaa magaca Alle inaan daacad u noqdo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka una gudanayo waajibaadkayga iga saaran xafiiskayga waxa uu ballan qaaday in halkan aan laga heli doonin shakhsi uga wakiil ah reer si uu wax isu dabamariyo waxaan rajaynayaa inaan gaarno mustawe uusan qofka u baahnayn qofka yaa xafiiska gobolkiisa ka yimid ama magaaladiisa ka yimid oo xafiiska u joogo communication la sameeyo waxaan rabaa inaan gaarno inuu qofka Soomaaliga ku kalsoonaado shaqada la qabanayo daacadnimo iyo hufnaan ee meesha ka jirtana dadku ay marqaati ka noqdaan oo qofkii macaayirta ka dhaxbaxa oo aan ku shaqeyn waayena asna waxaan filayaa inuu sareerkeena ka mid ahaaneen uu ka dhaxbixi doono waana ku dadaalayaa inaan macaayirta qofka ka dhaxbaxay uusan la sii joogin haduu Ilaahay yiraahdo isaga oo sii wata hadalkiisa Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud xeerlaaliyaha xafiiska la wareegay ayaa ballan qaaday in uusan ka gaabi doonin horumarinta shaqaalaha xafiiska xagga waxbarashada balse bedelkeed uu baadigoobi doono si uu sare ugu qaadi lahaa aqoontooda sharciga ah waxay u baahan tahay aqoon iyo karti iyo inaad daacad tahay bay wax ku xiran weeyeen marka wax kasta oo lagu kordhin karo aqoontaada wax kasta oo lagu kordhin karo capacity-ga macnaha shaqadaada inaan ku dadaalo inaad heshaan trainingdii loo baahnaa inaad heshaan si joogtaan la update gareeyo refresher training la qabto markasta oo aan shaqadiina kor joogteen loo baahan yahay in lagu sameeyo munaasabadan xil wareejinta waxa goobjoog u ahaa taliye xigeenada asluubta iyo booliska wasiirka cadaaladda gudoomiyaha maxkamadda sare ee marti sharaf kale mas'uuliyiinta ayaa si wada jir ah u kormeeray xafiisyada xeerlaalinta waxaana xeerlaaliyaha cusub uu warbixin ka dhageystay howlwadeenada iyo xeerlaaliyaha xafiiska banaynaya